waxaa laga yaabaa inaad maruun maqashay hay'adaha sirdoonka, laakiin marna ma isweydiisay cidda ay yihiin sirdoonku. Sirdoonku waa shaqaale qarsoodiya, kuwaasi oo qabta isla shaqooyin qarsoodiya. Sidoo kale waxay ku dhex dhuuntaan dadka iyagoo iska dhigaya shicib, waxaanay awood u leeyihiin inay difaacaan naftooda iyagoo aan waxuba isticmaalay. Su'aasha aan jawaabteeda xusayna waa tan aynu inta badan isweydiino, laakiin haddana waxaynu isweydiinaynaa, arrintani ma runbaa? Waxaynu barnaamijkeen ku xusaynaa qaar ka mid ah sirdoonnada adduunka ugu khatarta badan, kuwaas oo adeegsada xeelado aan caqligal ahayn. aynu u gudagalno barnaamijkeena maanta. cutubka 180aad ee Kuuriyada Waqooyi. run ahaantii maaha wax lala yaabo inay sirdoonka Kuuriyada Waqooyi kaalinta koowaad ka galo. sirdoonka caalam waa mid ka mid ah dawladaha xidhan ee caalam, waxaana adag in la helo xogteeda qarsoodiga. cutubkan 180aad ee Kuuriyada Waqooyi waana sida hay'adaha kale ee sirdoonka caalam mid ka sharciya dhammaan caalamka oo waa laga yaqaan, laakiin waxay leedahay shaqaale qarsoodiya harkarada ugu khatarta badan adduunka, waxaanay ka shaqeeyaan jabsashada xisaabaad bankiyada iyo inay ka xawishaan lacago. hase yeeshee xaqiiqada basaasitaankaasi u shaqeeya cutubkan 180aad waa qaar ku sugan dibadda Kuuriyada Waqooyi, waxaanay iskaga kala gooshaan wadamada caalamka si ay u jabsadaan bankiyadooda iyadoo oo aan ka tegayn wax raad. waxaa la yaabka leh waa siday u qariyaan laamaha dibaddu, waxaanay mararka qaar gabaad ka dhigtaan dhulka Shiinaha iyo dhammaan galbeedka qaaradda Aasiya. laakiin sanadadii u dambeeyay faraha ayaa lagu goday markii ay baarayaal ka shakiyeen in ay dhaceen bangiga dhexe ee Bangladesh. kooxdani sanadii 2014 oo ay dhaceen lacag gaaraysa $81 milyan. hay'adda sirdoonka ee Bakistan. hay'adda sirdoonka Bakistan waa mid ka mid ah hay'adaha sirdoonka ee ugu awooda badan caalamka. si taalamida shaqaalaheeduna waa qaar qarsoodiya oo jooga daafaha caalam, waxaaba laga yaabaa inuu saaxiibka ka mid yahay. waxaanay shaqaalaheedu awood u leeyihiin inay u dhacaan meeshay doonayaan adduunka iyadoo aanay cidina dareemin. kuma hadlaan luuqadahooda saxda markay ka maqan yihiin Bakistan. sidoo kale dawlado badan oo adduunka ka tirsan ayay kaga qaaqsiiyeen oo isku dayaya inay dalka ka saaraan shaqaalaha wakaaladan, waxaana ka mid ah dawladaha Maraykanka. sidoo kale waxay dagaalo ka fulisay gudaha dalka Hindiya, China, Afghanistan iyo cahdigii midowga Soofiyeed. hay'adda sirdoonka ee Maraykanka. sirdoonka Maraykanku waa mid ka mid ah sirdoonnada la tixgeliyo adduunka, waxaanay gacanta ku haysaa shaqooyinka ugu qarsoon ee caalamka. lana soco oo waxa laga yaabaa in uu sirdoonka Maraykanku uu hadda ku basaasayo, maxaa yeelay waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa moobilkaaga xitaa hadduu xidhan yahay, waxaanay kala baxdaa wixii muhiimad u leh sida siyaasadda iyo waxyaabaha faa'iidada u leh waqtigaas. waxaana ka mid ah taatikooyinkay adeegsadaan hay'adahan ku ciqaabidda muusikada, waxaanay u siraadaan muusig xad dhaafa. waxyaabaha ugu la yaabka badan ee ay adeegsadaan waxaa ka mid ah bisadaha, waxaanay arrintaa ku bixisay malaayiin dollar si ay bisadaha ugu tababaraan howlaha sirdoonnada, laakiin way ku guul daraysteen. sirdoonka Jarmalka.
sirdoonka Jarmalku wuxuu leeyahay xarunta sirdoon ee ugu adag caalamka, waxaana wax la xiiseeyo ah in xaruntan in aanay ka jirin laptopyo, moobilo gacmeed. Si taa la mida, waxaa mamnuuc ka ah inaad baraha bulshada ka dhex gashid xarunta, waxaanad kala kulmaysaa dhib. Sidoo kale waxaa lagu tiriyaa dhismayaasha ugu adag caalamka, waxaana jooga kumanaan shaqaale iyo sirdoon oo magacyo been abuur ah leh iyo baasaboorro foojariya. waxaanay u adeegsadaan baasaboorradan inay ku qabsadaan danaha ay ka leeyihiin dalalka. Si taa la mida, waxay basaasaan sirdoonka Jarmalku muwaadiniinteeda, waxaana sirdoonkani u shaqeeyaan si aan caadi ahayn, si aanay caddaymo weligood uga soo bixin. Sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Hordhac yar aan kaaga sheego sirdoonkan maxaa yeelay waxay shaqaalaysiiyaan dadka bilaa naxariista ee adduunka ku nool. Si taa la mida, xaaladda jidhkooduna waa heer sare. Sirdoonka Mossad ee gumaysiga Israa'iil wuxuu aad ugu dadaalaa inuu shaqaalaheeda ku dhex beero waddamada Carbeed. had iyo jeerna shaqaalaheedu waxay ka soo jeedaan Carab dhalada, waxaanay arrintaasi ka caawisaa inay helaan xogaha ay doonayaan si isku halayn leh. sidoo kale waxay ka fuliyaan shaqaalahaasi isla waddamada Carbeed xatooyin iyo qalalaasaha iyadoo ka leh arrimo siyaasadeed. sidoo kale sirdoonka Mossad waxay dhex galaan oo ay ku faafeen hoteelada, shirkadaha dalxiiska, shirkadaha duulimaadka, shirkadaha dhismaha. kaartooyinkay adeegsadaan waxaa ka mid ah inay shaqaalahooda ka dhigaan qaar daroogooyinka qabatimay. taasina waxay keenaysaa inaanay iska joojin wada shaqaynta ay la leeyihiin hay'adda, maxaa yeelay ma helayaan dhaqaalo ay siistaan daroogooyinka. mararka qaarna waxaa dhacda in ay si qarsoodiya u siisa daroogooyinka ay u baahan yihiin.